هاي أصحابتا بريهان وانو كلا بادني محل هذا waa guurayay ciid baa soo dhow ciid wanaagsan maanta waxay ka shidan tahay shamacyaasha dhowr ka nooc iyo sida ma aragtay qaabka loo isticmaalo alaabtani waxa weeyaan alaabta miisaskii ma aragtay TV-yaasha iyo ma aragtay meelaha yar ee mugdiga aad iftiinka u rabto lagu sharaxdo battery buu leeyahay marka dad ku imaadana waa la shiltaa markaad save gareynaysan waa la baqtiyaa marka different design buu ku noqonayaa kani waa ka lagu shito guryaha ama fadhi ha noqoto ama hurdo ha noqoto ama ha noqoto waata waxa weeyaan different waxaad helaysaa asagoo vanilla ah waxaad helaysaa asagoo ma aragtay strawberry ah different maxaa la yiraahdaa markaad saas u uriso different hal baad helaysaa kan saddexaad abada sidoo ugu soo baxayo iftiinka different designs different color remote buu leeyahay marka meelaha mugdiga ah ayaa loogu talagalay isxaabeeye ciid baa soo socota waa very cheap waan inii sheegay alaabtayda badana qiimad baan ka iibsadaa asxaabekii outdoors kana waa ka badana kan aad baan arka Soomaalidu inay ugu khaldanto bahashan waxa loogu talagalay inayna dabeeshu qaadin asxaabe outdoors kiina habeeya ma aragtay maalin sidan oo kale ee roob jiro halkaas alaabtaada dhiganaysa shaaxaaga kafeega good time ayaad qaadanaysa alaabtan badana dad guryaha gudihiisa ku sharaxdaan arka waa outdoors asxaabe ma aragtay hal kala baanday hadaanad garanaynin ma garanaysa dad garanaysana ma aragtay lagu sheegayo marka asxaabe alaabtan outdoors ka ah outdoors hata maanta nafta la casuumaya waa school holiday ma sha Allah guriga la jooga candleski waa kuwan inii sheegayay ee electric ahaa jawigu maanta uu kala degay uma baahnid qof kaliya adiga caruurta ma aragtay inta dalka geemamka u dhigto enjoy farxadaada qofna ha ku xidhan kaliya hadaad intaad fariisato aad ma aragtay ama subxaanallayso ama quraan dhageyso ama majaajilo dhageyso aday kugu xirantahay but please candles kan ma aragtay qayb weyn buu ka qaataa quruxda guriga sheerka iyo laagta iyo wixii su'aalo ah hala igu soo ma aragtay luuqa hala ii soo geliyo wixii snaapkayga haya maalin wanaagsan subax wanaagsan habeen wanaagsan qofka